بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. لما ولا الله كنت عن طيب ميدي وين سلامك استوجوكتان ودروستي وعيدلين تقويس كهاد ونكجها لنا بدبادين تدقي تانا يصير نرشة كتوس لهاد إسمه حياة هاتو سيد يقولون ولا نهاية حياة السعيدة نرو ونكسن أو فرحات كل سن كان فوق مشاكل يبوقة قيسس كجرو إن قفوا بمنان تقولي هاي يمشي لقربه ومحياة هاتو وجوكسده سي قيس كل سن دو قيس كهاجو bulshadana way hagaagaysaa marka ummad horumarsan oo ummadaha kale wax la qaybsataa noqonayna oo dib u dhaca iyo jabka nagu dhacay ka soo kabsado mawduuca maanta waxa weeyaan maqaasidul islaam min az-zawaaj muhiimada guurka u leeyahay islaamka maxay tahay marka guurku waa waxyaabo asaasiga ah oo shariicada islaamka ay ka istaagtay mowqif adag istaagtay waana shay qofka muslimka u baahan yahay oo laga maarmaan ah inuu guursado muhiimada kooda waxa weey an-naslu qofka inuu farcamo oo wax dhalo وترى فرع بني آدم وسنجوين هذه جورك إسكت عفوا قفك وعنوس نقضه وقفه من دليل إسكت جورسنين ونقضه إسكت فريسته مركا ترى كي بني آدم كويرانا يا قفك مركو حالة مهمة ديسكود حوي النسل قفك إنه وحده هذا الدورة ده فرع بدن أو رجبات كوهرا يا ما كي فرع جوجيين والماضي اللي يري تحديد النسل وحلا يقانو أما فهم البلانينج وحلا يقانو محاكا ده شيء جوريه قروح بدن دول دسان ودن دسان لكن تد أن لهن ويالكي واحد بدلا يملأ محيط واحد أديجا يملأ qofku waa duqoobaya nolol adduun kadibna adduunku ka tagaya iyo dhalay asaga laftigiisa xuquuqdiisa waalidnimo waa waaye in dawladda ay daryeesho oo marka guriyo dadka duqoobay lagu mutaqaacidiinta ah lagu haya ka dhalatay marka muhiimada guurku waxa way an-naslu qofka inuu wax dhalo oo farcamo taasna waa in la ogaado rag iyo dumarba gaar ahaan gabdhaha inaadan dhihin ilmaha waa iska xiraya ama waa hay'ato iska joojinaya hay'ato ama maxay ahaato iyadoo ruqso u haysanin ama duruuf caafimaad aysan jirin ama ninka odaga kala heshiin in ilmi iska xirto marka muhiimada guurka koo waxa way qofka inuu farcamo oo uu wax dhalo oo maxay ahaato uu diyaariyo bari qofkii bedeli lahaa booskiisa gali lahaa markuu adduunka ka tago marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri marka nabi waxa ilaahay quraan ku sheegay nabiyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala markii duqoobay ilma siiyay wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون إلهي وحو نفتي نكسم يليري حاسس يا محي دلايا ويلل يا عرور دلايا يا عرور تعرور دلانا حفدة كوا أي أطهي مركا محي هتو مركا دنا رزق قدر إلهي وقوس ديبايا ورزقكم على ضوء من الطيبات وحو ونكسن ومركا ilmuhu رزق قدر وطان marka been waa marka xalay ilmaha faqriga keenayaan ama gaajo keenayaan ama maxay ahaato dib u dhac ay ku guridayaan wax ka jira male cunuga dhashay Allah subhanahu wa ta'ala risqiisa waalidkiisa u soo dhiibaya aabihi dhalo masuulka ka ahaba ilaahay u kafaalo qaaday asaga maxay ahaato laga raba inuu kariyo ilaa uu maxay ahaato ka shaqeysto wiil duu yahay ilaa laga guursado gabar haday tahay inta asaga saaran tahay Allah u saqiraya risqiisa oo waalidkiisa baa loogu saqiraya oo loo soo dhiibaya ilaahay wuxuu dhahay la taqtulu awlaadakum nahnu narzuqukum wa iyyahum أنا نرزقنا إياه أيجاب عيادك نحن نرزقهم وإياكم مركا والدكين وحلو إرزاق يا إلمها سببتون إلمهن وحلو إرزاق يا والدين توت سببتون مركا عرورت بركة هذا إيه خير كودة وطن نبي الله زكريا أو دقوة أو الملعان كود محيط الملعان جوجا أو مركا النبي النمدي قفك دحل هاي سنين أو إلهي برياي مركا حجري ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلهه هيجتين كلجي أديك واحد حلو أو مركا وحور قف ودينتي رسالة كورجيا markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala marka fahabli min ladunka waliyan wada ilaahu isi qof wali ah ani dhaxlo yarituni ani dhaxlo wa yaritu min ali yaqub yaqub oo nabinimada ah dhaxlo ilaahu isi waj'alhu rabbi radiya bidralika marka ilaahay wuxuu si yaxya ilaahay ku irsaaqay oo ilaahay si kaas marka nabi noqday oo nabinimada ka dhaxlay marka nabigaas wuxuu ka cabanaya ilma la'aan ka caban markaas ilaahay u ajiibay subhanahu wa ta'ala marka rabbi habli min as-salihin wa bashar marka nabi ibrahim isagana duqoobay marka isagana wuxuu ilaahu wax saalix ay si marka saasa la ina ku duceysato marka ilma la'aan ku qabsato ama ilmaha ka istaagaan ama ilma aad wali wax dhalay sidaas ambiyada ilaahay u bari jireen ina u bareed inta dhakhtar iyo wax kale aadin koob arintaada ilaahay u dhiibto oo ducada badsato ilaahay wuxuu yiri fabasharnaahu bighulamin halim waxaan siinay wiil oo maxay ahaato xaliim oo dulqaad badan marka kadib wuxuu leeyahay alxamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari ismaaciil wa isxaaq asoo duqoobay ba ilaahay ilma siiyay oo gadaal buu ilma ilaahay ka siiyay labadoodina nabi noqdeen marka labadaas nabi yaa tusaale kugu filan Allah subhanahu iyaga nabi la'aan ilma la'aan oo duqoobay inay ilaahay ka bariyaan subhanahu wa ta'ala in awlaad uu ku irsaaqo ilaahayna uu ka aqbalay oo mid walba awlaad u dhalay awlaadina in nabinimada ka dhaxleen والذين يقولون وكا إلهي مكو أمان عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهو إلمهينا يحاسس كنا نغدي
kuwa ilqabowsi marka ilmuhu waa ilqabowsi waa raaxa nafsiya waa raaxa nafsiya marka cunugaada ku hortaagan yahay markuu kula fadhiyo markaa dhabta ku hayso markuu maxay ahayto wax qabsado oo shaqaysanayo intaa qofka waalidka idmiinaan uu dareemaya marka iyo ilqabowsi bay ilmaha ku noqonayaan ilqabowsi iyo ilmaha ku noqonayaan marka ilaahay wuxuu marka in wadkuru id kuntum qaliilan fakatharakum badnaanshaha bani aadamka muxuu ka imaanaa inuu qofkii wax dhalo nabi alayhi wasallam tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-amya guursada waxaan idinkugu faani doonaa ummadaha kaleento markaa guursato ilmaha dhashan ilmaha xuquuqdooda waa inaad garastaa oo aadan noqonin غayr mas-uul aadan noqonin marka ilaahay haddana aayad kale yaa ayuha الnaas taquu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلهي markuu nabi aadam abuuray haddana xaaskiisa loo abuuray waxaa kasii farcamay caruur fara badan oo rag iyo dumarba leh marka idan muhiimada guurka waxaa waaye in qofka maxay ahaato uu wax dhalo muhiimada labaad uu guurku leeyahay waxaa waaye maqaasida qadul basar indhaha inuu laabo qofka indhihiisa way laamayaan xaaraan ma raadinayo oo xaaraan uma milicsanayo oo qofku markuu ninkiina guri xaas leeyahay xaaskiisa waa marjic wax ku laabanaya gabadhina ninkeeda ku asturnaanaysa marka waxaa ka maxay guurka maqaasidiisa waxaa kamid ah qadul basar inuu yahay guurka inuu indhaha laabo sidoo kale maqaasidiisa waxaa waaye xaas wanaagsan adduunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyada waa raaxo oo kooban maxaase raaxadeeda ugu wanaagsan hooyo wanaagsan oo guriga kuu fadhido oo ilmaha kuu tarbiyeyso oo caruurta kuu qabato oo ninkeedana laf dhabar u noqoto oo maxay ahayto ka shaqeyso guushiisa iyo maxay ahayto horumarkiisa ka shaqeyso maadaama marka waxay kamid maqaasida haween wanaagsan inuu qofku ku dadaalo inuu soo ku heli lahaa maxay ahayto baraaraha nolosha ay tahay xaaska wanaagsan ay kaalin ka tahay nabigu wuxuu dhahay arbacu min as-sacaada afar waxay farxad ayaa ku jirto almar'a saalixa hooyo wanaagsan xaas wanaagsan maskan waasic guri waasic oo ka badan oo adii caruurtaada idin deeqo iyo maxay ahayd daris wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan intaaba waxaa waaye qofka markuu intaas isku haysto xaas wanaagsan iyo hooy wanaagsan iyo daris wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan markaa qofkaas sacaado uma dhigno marka maxay ahayd qofka marka maqaasida guurka uu leeyahay marka waxaa waaye maxay ahayd inaan qofka uu noqdo qof indhihiisa oo laaban yihiin maqaasida kaleeto guurka uu leeyahay waxaa weeyaan al-shucuur bil-mas-uuliya qofka inuu mas-uulnimo u diyaar garoobo ilaa marka guurkii hooyadii xaasnimo ay noqonaysaa ninkeeda mas-uul maxay ahayd caruurteeda mas-uulka ka noqonaysaa aabihiina mas-uul noqonaya gurigiisa caruurtiisa mas-uul ka noqonaya nabiga muxuu dhahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta waa raaci adeega la dirsaday oo ilaahay subxana watacaala uu aqro weydiin doono wixii loo diray marka falmar'atu raacin fi beyti zawjiha warajulu raacin fi beyti zawjati marka ninkiina wuxuu mas-uul ka yahay oo raaci ka yahay oo ilaahay aqro kula xisaabtamaya subxana watacaala caruurtiisa iyo xaaskiisa gabadhina waxay mas-uul ka tahay ninkeeda iyo gurigeeda mas-uul ka tahay marka qofkii wuxuu dareemayaa shucuur bilmas-uuliya maxay ahayd maqaasidiisa sidoo kalenta muhiimada guurka uu leeyahay idmi-inaan qofka deganaansho xasilooni uu leeyahay xasilooni iyo maxay ahayd raaxa nafsiya iyo qofka guurka ka helaya iyo deganaansho qabow oosan qofka uu ku milicsanaynin inuu noqdo qof dhacdhac badan ama meel ku haadhaad badan oo guurka qofka uu ku xasilaya litaskunu ilayha maqaasida kaleeto guurka leeyahay waxaa weeyaan inuu xiray albaabka xaaraamta kullu manaafid alxaraam oo qofkii xaaraamta uu ka xirmanaya uu ka asturmanaya hadduu raadiyana waa dambiyada waaweyn ay noqonaysaa in noqdo qofka inuu guurka ka xiro waxyaabaha xaaraanta ah in lagu dhaco oo maxay gabadhina xaaraan irhayso oo ninkiina xaaraan u raadiyo marka si shareecada waafaqsan isku guursadaan qof walbana qofka kale xaqiisa uu ka helo idan wuxuu noqonayaa maxay ahayd albaabkii waxaa ka xirmanaya zinada ida tazawaja rajulu faqad istakmala nisfa diinihi falyattaqi llaha fi nisfi al-aakhir marka wuxuu qofka hadduu diinta u guursado waxaa dhamaystirma diintiisa nuska kale inta ilaahay ha kaga baqo marka intaa marka muhiimada guurka u leeyahay nolosha bani aadamka oo waxay tahay shay wanaagsan oo shareecadana ku boorinayso qofka inuu wax dhalo inuu indhihiisa ku laamadaan inuu noqdo qof maxay ahayto mas-uuliyad leh inuu noqdo qof degan inuu noqdo qof maxay ahayto dhamaystirantay diintiisa nuskeed ee dhamaystirantay intaasoo dhan waa marka muhiimada guurka u sameeyey islaamka u sameeyey oo markaa guurka wuxuu xirayaa albaabka xaaraanta u xirayaa wuxuu kaloo xirayaa canuusnimada qofka inuu guur la-aan iska joogo oo uu ku duqoobo oo markaa uusan weligiisba uusan guursanin islaamka kuma dhiirigelinayo marka qofka inuu caanis noqdo qof maxay ahayto aan guursanin marka maxay ahayto marka muhiimadaas islaamka u leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu يقول نقضي اوكي